waxaa maanta si rasmi ah looga qaaday ganaaxyadii kala duwanaa ee hore ugu riday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland gobolada Hawd iyo Togdheer iyo waliba ciyaartoydii ka soo muuqday tartankii maamul goboleedyada Soomaaliya. Gudoomiyaha guddida racfaanka Somaliland Axmed Aflax ayaa warbaahinta uga warbixiyay siyaabihii u adeegsadeen ka qaadista ganaaxyadaasi kala duwan ee ciyaartoyda ka soo muuqday tartankii maamul goboleedyada Soomaaliya iyo sidoo kale gobolada Hawd iyo Togdheer. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ay hore ugu riday ganaaxyadaasi kala duwanaa. isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi anagoo guddiga ambiilka kana tirsan xiriirka kubadda cagta ee Jamhuuriyadda Somaliland kadibna muddo soo waday ganaaxyadii ciyaarihii gobolada waxaan halkan ku cadeynaynaa anagoo guddiga ambiilka xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Somaliland kadib markaan dib eegis ku sameynay ganaaxyadii tartankii ciyaaraha gobolada ee dhawaan inoo dhamaaday sidoo kalena ciyaartoydii ka soo ciyaaray tartankii maamul goboleedyada Soomaaliya anagoo tix raacayna xiriirka iyo shuruucda u degsan xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu go'aaminay qodobadan soo socda anagoo la kaashanayna wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo sida wasiirku aanu kala tashanay in ganaaxa laga qaado labadii gobol ee ganaaxyadu ay ku dhaceen ee gobolka Togdheer iyo gobolka Hawd sidoo kalena in gabi ahaanba ciyaartoydii ay ku dhaceen ganaaxyada laga qaado ciyaartoygaas oo u badnaa dishibliinka intii ciyaaraha gobolada tartankii ciyaaraha gobolada uu socday qodobka saddexaadna waxa weeye in ciyaartoydii ka soo ciyaartay maamul goboleedyada Soomaaliya kadib markaan dib eegis ku sameynay oo shalay ka fariisanay guddiga ambiilka iyo xiriirka kubadda cagtuba ay nala joogeen waxaanu go'aaminay in loogu bedelo ganaaxyo lacageed. dhinaca kale waxaa iyana halkaasi ka hadlay Dr. Su'aadna Aadan Ismaaciil iyo Jaamac Karaacin oo ka mid ah bahda isboortiga Somaliland waxaana yiraahdeen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddida isboortiga iyo wasiirka isboortiga oo go'aan waayeelnimo ka gaadhay arrintii dhalinyaradii isboortiga ahayd waan u mahadnaqayaa waan ku ammaanayaa waxaan leeyahay sportka waxa weeyaan waxyaabaha disciplineka ina bara wada shaqaynta ina bara wada ciyaarta ina bara hadduu sportku isu rogo wax sharafta inaga dilaya wax nabadgelyada inaga xumaynaya wax magaca Somaliland inaga xumaynaya markaa ma noqdo sport anna waxaan ahay dadka ku adag disciplineka waxaan ku adkahay xaq waxaan ku adkahay haddii qof discipline xumo uu sameeyo in ganaax u dhigma dambiga uu galay lagu dabaqo tiibariyo dhaweyta dhacday dhalinyaro badan oo ahaa taageerayaasha ay qalanka ka dhigay kubaddaas leeyahay way gashay hoolka iyo may gelin waxa inoo xaqiijin kara lahaa halkan inoo xaqiijin kara lahaa oo waa ka sawirkayo way gashay ama may gelin anigu waxaan ahaa dadkii aad uga xumaa wixii ka dhacay bari wato anoo ku faraxsanaa sida fiican ciyaar u qabsoomeen wasaaradda uga mahad celinayaa iyo madaxweynahaba waxaan haddana aad uga xumaa go'aankii ka soo baxay guddida oo isna aan ahaa brutal buu ahaa isaguna runtii marka laga hadlayo 5 sanadood iyo 4 sanadood iyo waxaan se ku faraxsanay maanta inay guddida intay dib u fariisatay guddi qabanqaabisay ay maanta soo afjartay oo dhalinyarada ay ku farxayaan ummaduna ku farxayso goboladina ku farxayaan go'aanka marka hore lagu soo rogay. ugu dambeyntii madashaas waxaa soo afmeeray wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Boos Mira Maxamed oo ka hadlay ganaaxyadaasi laga qaaday gobolada Togdheer iyo Hawd iyo sidoo kale ciyaaryahanadii ka soo muuqday iyo waliba sidoo kale ciyaartoydii ka soo muuqday tartankii maamul goboleedyada Soomaaliya isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi ganaaxa maalinta haddii aan la sameynna wax badan baa sii xumaan lahaa looma sameyn ganaaxa in la ciqaabo dadka iyo in lagu toortirgareeyo midna looma sameyn waxaa loo sameeyey keliya inuu garsooraha ciyaarta ku jira iyo calamwarayaashiisu ay ugu sareeyaan garoonka marka la galo iyo in loo hoggaansamo sharciga baa loo sameeyey looma sameyn in lagu cadaadiyo
looma samayn in gobol lagu cadaadiyo midnana go-aankan uma jeedin go-aankan guddi baa qaaday aada iyo aada iyo aad bay ugu mahadsanaayeen mar walbana labada janaba way jireen guddiga dacwadaha iyo guddida ambiilka waa dhisnaa saaga go-aankan waxa gaadhay guddida ambiilka hadduu gaadhay sidiisaas isna loo qaadanaya maadaama aan ahayn wax markii horeba dadka in lagu ciqaabo loogu talagalay waxaan se idin sheegaya annaga sidii sportiska guda jirna iminka waxaa inoo socdaa horyaalkii 4 week 5 week buu marayaa sanadka inta ugu dambeysa wuu soconayaa si walba cidii doonaysa ha u qaadato inamadii waxaa ka muuqda isbedel iyo discipline cabdikariim ciise cabdullaahi